tirada la xaqiijiyay ee dadka fayruska corona haleelay qaaradda Afrika ayaa la sheegay inay 31 inka gaadhay. wadamada tirada badan ka imanayso waa Nigeria, Cameroon, Soomaaliya iyo Senegal. bal aynu tooshka ku ifino tirooyinkii ugu dambeeyay qaarkood. Soomaaliya 3 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen fayruska corona u dhinteen iyadoo kiisaskuna ay yihiin maanta 44 kiis la helay. gobolka Banaadir waxaa laga helay 40 kiis, Puntland waxaa laga helay 4 kiis. xarunta xakamaynta cudurrada faafa ee Afrika ayaa sheegaysa in 31,933 qof laga helay oo ku kala nool 52 dal ee Afrika. tiradaasi 1,423 kamid ayaa iyagu u dhintay cudurkaasi iyadoo 9,566 ay ka kaceen oo ay ka bogsadeen. iminka waa qasab inaad xirato aftabool ama mask magaalada Afrika ugu weyn ee Lagos ee dalkaasi Nigeria. maamulka gobolka Lagos ee state oo ay ku nool yihiin 20 milyan qof ayaa uga digay inay garax la kulmayaan haddii ay xidhan waayaan aftabool dadka halkaasi ku nool. in ka badan kala badh 1,200 ee kiis ee Nigeria laga helay ayaa gobolkan Lagos state laga helay. booliska Koonfur Afrika ayaa iyaguna raaligelin ka bixiyay aflagaada uu mid iyaga ka mid Nabi Maxamed calayhi salaam u geystay iyagoo intaxaabay dad muslim ah oo iyagu isugu yimid salaad ku tukadaan jamaca meel. dadkaasi oo la sheegay inay jabinayeen xayiraadda lagu mamnuucay in dad badan ay isu yimaadaan. dhanka kalena koox dhakhaatiira oo ka socota dalka Cuba ayaa soo gaadhay South Africa si ay uga qayb qaataan la dagaalanka fayruska corona. waa dalalka ugu daran Koonfurta Afrika ilaa haddana caabuqan waxa uu haleelay 4,500 oo qof. Cuba iyo Koonfur Afrika waxaa ka dhaxeeya xiriir qoto dheer iyadoo Cuba ka qayb qaadatay halgankii lagaga soo horjeeday cadaankii tirada yaraa ee halkaasi ka talin jiray sanadihii 90-meedkii. haddaynu eegno dhanka caalamka iyo saameynta coronavirus, dalkii Yurub ee qaaradda Yurub ee dhirbaxada culus ugu dhuftay virusku waxaa Talyaaniga waxaana imika soo bandhigeen qorshe xayiraadaasi 7 wiig saareed lagu dabcin doono marka la gaadho 4 May. Ra'iisul Wasaare Giuseppe Conte ayaa sheegay in dadka loo ogolaan doono inay ehelkooda booqdaan iyagoo laakiin tiro yara. waxaa kaloo la tegi karaa guri beeraha dadweynaha. warshadaha dhismayaasha ayaa iyagana la furi doonaa. iskuulada laakiinse way xidhnaan doonaan tan iyo bisha September. dalkan UK, ra'iisul wasaaraha Boris Johnson ayaa shaqada ku soo laabtay kadib 3 toddobaad oo uu COVID-19 la jiifay. isaga oo hadal ka jeediyay banaanka 10 Downing Street oo xaruntiisa rasmiga ah uu degan yahay ayaa Mr. Johnson uu sheegay inaan si dhaqso ah loo dabcinin xayiraadaha dalkan saaran. waxaana uu sheegay haddii taasi ay dhacdo ay keeni karto in fayrusku soo laba kacleeyo, taasi oo sababi karta dhimasho badan iyo dhaqaale burbur hor leh. inkastoo fayruska corona uu yahay dhibaato caalami ah oo aad isu sii taraysa, ma aha xaaladii caafimaad ee ugu horreysay ee ay dunidu soo marto. weliba qaaradda Afrika, gaar ahaan Afrika, waxaa la soo darsay xanuuno ay ka mid yihiin Ebola, duumada, cagaarshowga ama jaundiska iyo kuwo kaleba, taasi oo ku qasabtay saynisyahanadu qaaraddu inay aad ula tacaalaan sidii welibana ay isku dayeen ay uga guulaysan lahaayeen. markii oo Ebola uu dilaacay 2014 ilaa 2016 waxa uu aad u saameeyay galbeedka qaaradda Afrika. waxa uu ku dhacay ilaa 28,000 oo qof iyadoo ay u dhinteen 11,000 oo qof. HIV/AIDS ayaa aad ugu baahaysana bariga iyo Koonfurta Afrika iyadoo in ka badan 20 milyan oo qof ay la nool yihiin iminka HIV. cagaarshowga ama jaundiska ayaa lagu qiyaasaa inuu sababo sanad kasta ilaa 60,000 oo dhimasho. haddaba waxaanu eegaynaa sida ay xaaladahan caafimaad ee degdega ahaa ay qaaradda u soo martay ay uga caawinayaan iminka in ay COVID-19 isaga difaacdo. Anaso ayaa warbixinta soo dirtay. Caaisha Afrax ayaa soo jeedinaysa. xanuunka Ebola ee ka dilaacay DRC wuxuu walwalgeliyay dalalka dariska la ah waqti dheer. muuqaaladani waa sida ay ahaayeen madaarada dalal badan oo Afrikaan ah. haddase waxaa yimid COVID-19 welina waxaa soconaya baaritaanadii ka jiray madaarada. xanuunkani Afrika digniin ayay hore uga sii heshay maadaama uu dunida kala soo maray. dad badan diyaar garow ayay sameeyeen. Afrika waxay haysataa waqti. waxay arkayaan sida ay qaybaha dunida iyo reer galbeedka iyo weliba dhanka Aasiya uga falceliyeen. waxaan fahmay in Afrika ay ka jirto diidmo ka yar tan Shiinaha iyo reer galbeedka.
marka cudurka la eego waana arrinta dhiirigelinta keentay waxaan arkaa wadamo badan oo afrikaan ah oo dhab u qaatay cudurkan